maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa isku howlaya abaabulkii ugu dambeeyay oo ay ku doonayaan in mar kale weerar culus ay uga geystaan qaybo kamid ah gobolka Gedo. soo dhawaada wada haday tahay markaaga kugu horeysay ayaa soo booqato halkan subscribe noo saarno like garay muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada. wararka laga helayo Jubbaland waxa ay ku waramayaan madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Maxamuud Sayid Aadan in qadka telefoonka ay ku wada hadleen. labada mas'uul oo ku kala sugan magaalooyinka Kismaayo iyo Nairobi ayaa waxa la tilmaamayaa in isla meel dhigeen suurtagalnimada lagu qaadi karo weerarka madambeesa kaasi oo lagu qabanayo magaalada Balad Xawo oo guud ahaanba ay la wareegeen ciidamada qalabka sida. wararku waxa ay tilmaamayaan in Axmed Madoobe uu doonayo in ciidamo uu geeyo magaalada ceel waaqay gobolka Gedo halkaasi oo uu doonayo inuu geeyo ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 2,000 oo askari kuwaasi oo guud ahaanba si luga ku gali doona magaalooyinka kala duwan ee gobolka Gedo oo ay ugu horeyso magaalada Balad Xawo. warar kale oo aynu helayno waxa ay tilmaamayaan in Maxamuud Sayid Aadan oo ku sugan gudaha magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya uu kulamo kala duwan la qaadanayo saraakiisha iyo sidoo kale mas'uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowladda waddankaasi Kenya kuwaas oo uu kala hadlayo sida laga yeelayo xiisadda abaabulan ee kala dhaxaysa dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaa la tilmaamayaa in Maxamuud Sayid Aadan iyo dowladda Kenya ay ka wada hadleen sidii looga caawin lahaa Jubbaland dagaalka ay kula jirto dowladda dhexe ee Soomaaliya. waxaana la tilmaamayaa in dowladda Kenya ay weydiisteen in ay ka caawiso dagaalkaasi isla markaana sanad ciidan iyo hub markaasi ay siiso. waxaa la tilmaamayaa in Maxamuud Sayid Aadan abaabulka madambeesa uu halkaasi ka wado. Madoobana waxaa la tilmaamayaa in Nairobi Madoobana waxaa la tilmaamayaa in magaalada Kismaayo uu ku abaabulayo ciidamo tirabeel ah kuwaasi oo uu doonayo inuu ka dejiyo magaalada ceel waaq isla markaana diyaarada uu uga soo daabulo gudaha magaalada Kismaayo. xiisada abaabulan ayaana la tilmaamayaa in laga soo warinayo deegaanadaasi. dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa ay ka jireen gudaha magaalada Balad Xawo kuwaasi oo u dhaxeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaya Cabdirashiid Yanan iyo sidoo kale ciidamada maamulka Jubbaland oo markaasi dagaal ku wajahay kuwaasi oo ugu dambeyntii guud ahaanba la soo afmeeray isla markaana laga qabsaday magaalada Balad Xawo. wararku waxa ay tilmaamayaan inay u gudbeen dhanka iyo waddankaasi Kenya ciidamada maamulka Jubbaland. ila dhaxalgal ayaa waxa ay ku waramayaan in taliyaha nabad sugidda Jubbaland ee ay magacawday dowladda dhexe ee Soomaaliya Cabdirashiid Yanan inuu gaaray dhanka iyo magaalada Dolow halkaasi oo abaabul kale uu ka sii bilaabayo. Yanan waxa uu ku dhawaaqay inaanan la joojin doonin howlgalkan isla markaana ay gacanta maamulka Jubbaland uga saarayaan degmooyin ka tirsan gobolka Gedo. waxaana uu hoosta ka xariiqay inay bartilmaameysanayaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin. Balad Xawo ayaana ugu weyneed oo waxaa laga saaray guud ahaanba ciidamada Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa hadda inuu doonayo wejiga labaad inuu ka howlgalo magaalada Dolow halkaasi oo ay ku sugan yihiin ciidamada Etoobiyaan iyo sidoo kale saraakiil ka amar qaata Axmed Maxamed Islaam Madoobe ugu horeeyo gudoomiyaha magaalada Dolow oo ka amar qaata dhinaca iyo maamulka Jubbaland ninka lagu magacaabo Lafay. waxaa la tilmaamayaa dhaqdhaqaaqyo abaabulan durbaba in Axmed Madoobe uu ka howlgelinayo gobolka. waxa uu doonayaa inuu ka hortago qorshaha la doonayo in markaasi lagala wareego degmooyinka iyo deegaanada ka tirsan gobolka Gedo. dowladdu waxa ay qorsheynaysaa in maamulka madax banaankan Axmed Madoobe ay ka dhisto magaalada Garbaharre ee xarunta gobolkaasi. waxaana la tilmaamayaa in intaan la gaarin ka hor in ay guud ahaanba deegaanada iyo degmooyinka maamulkaasi uu ka jiro guud ahaanba ay cagta mariso sida markaasi ay qorsheynayso. waxaa la tilmaamayaa 2 diyaaradood oo hub iyo sanad ciidan waday inay ka degeen xero UK oo ku taala gudaha magaalada Balad Xawo. waa markii saddexaad oo diyaaradahaasi halkaasi ay tagayaan waxayna sidaan hub iyo sanad ciidan. saraakiil ciidan iyo sidoo kale xildhibaano ayaana ka mid ah xubnaha halkaasi tagay. waxaa sidoo kale ay wadaan daawooyin lagu dabiibayo ciidamadii dhaawaca ka soo gaaray dagaalkii ay ku wajaheen ciidamada Axmed Maxamed Islaam Madoobe. xiisadan colaadeed ee ka jirta gobolka ayaana marba markii kasii dambeysa kasii daraysa walow hadda deganaanshiyo laga dareemayo gobolka balse waxaa jira abaabul xoogan oo markaasi dhinac waliba ugu jira qabsashada degmooyin iyo deegaano hor leh. lama sooga xaaladan iyo halka ay saldhigan doonto.